السلام عليكم maantay iyo mar kale iyo channelka menopause-ka ku soo dhawaada mar kale maanta waxaan karinaynaa waxyaabo kale ku saabsan menopause-ka hadana waxyaabahaas waxaa kamid ah waxaan karinaynaa wax oo horeyna aan u soo karinay laakiin hadda ka duwan xoogo yar waxyaabahaas inta waxa waaye maanta waxaan karinaynaa sameynaynaa digir cagaarteeni waatana digir cagaar oo loo yaqaano Ingiriiska ama wadamaadka kale looga yaqaano mung beans digirta meeshaan ay ku jirtaa waxaan kaloo isticmaalaynaa oo aad iyo aad ugu fiican menopause-ka loo isticmaalo oo menopause-ka hadii aad qabtid aad ula dagaalami kartid waxaa waaye flax seed ama hadii aad heli kartid flax seed kan isticmaal ama linseeds marka saanay u taala wuxuu u egyahay sisinteeni oo kale u egyahay laakiin waxaa linseedka ama flax seed waxaad ku cuni kartaa waxyaabo badan aad ku darsan kartaa raashinkaaga oo dhan soo ceeriina had cuni kartaa oo waxa ku darsan kartaa yogurtka ama waxyaabo kale ama suugada baastada marka karsanaysid aad ku darsan kartaa marka waxyaabahan aan ka hadlayno oo dhan waa waxyaabaha menopause-ka waaye menopause-ka wuxuu naagaha ku dhacaa markii oo dhiigga ka dhamaado ayuu menopause-ka naagaha kugu bilowdaa marka siyaabo badan oo aad ku fahmaysid jirto marka intaan raashinka karinayno waa ka sii hadlaynaa menopause-ka siyaabaha oo ugu dhaco naagaha ama aad u dareemaysid inuu menopause-ka ku haayo marka aan karinta bilowno marka ugu horeyso waa saliid yaroo meesha noogu jirto hadii ood qabtid muxuu ahaayay subag aad qabtid saliidda iska yaree marka saliiddaas yar saliidina iska yareynaa markastaba fiican waxaan kaloo ku daraynaa basashiyo noo jarjaran waatana muxuu ahaay oo diyaar noo ah ayaan ku daraynaa marka menopause-ka naagaha sidoo ugu dhaco waxaa waaye waxaad dareemaysaa markii oo dhidid shax oo kaa soo dhahayo habeenkii oo kale ama maalintii adoo iska socdo oo kale hataa qabow ka jiro markaan dabkayga xoogoo dheeraayo dabkiyaan biloobay marka waxaa waaye muxuu ahaayey menopause-ka waxyaabo badan oo aad ku dareemi kartaa jirto waxyaabahaas aad ku dareemi karto markaan ka wada hadalno muxuu ahay si fiican aga hadalno basasheena intay noo sii karayso dabool yardaan dhakab ku siiya si ay noogu hurto basasha marka menopause-ka waxaa waaye naagaha waxay ku dareemaan oo adiga sida ku ogaan kartid waxa dhidid yara shax ka soo dhahay dhidid kuleyl ah oo aadan filanayn adoon waxba haynin dadka badanaa waxay dhididaan markay wax hayaan ama jijimicis ay sameynayaan ama meel ordaan ama kuleyl oo hayo kuleylkan waxa wax adoon ogeyn iska ka soo baxaya waa jirkaaga aad ka dareemayso wajiga iyo garbaha aad ka dareemayso ay habeenkii hurdada ka kicinaayo menopause-ka markuu kugu dhaco oo ku haayo waxaad dareemaysaa waxyaabo fara badan oo jirkaaga aad ka dareemaysid jirto waxyaabahaasitood marka aan kasii hadalno intaan waxaan sameynayno hadda basashi way noo kartay maasha allah tabaarakallah basashi markay saan noogu karto waxaa waaye wax badan oo shuutaan umaba baahna arrintanaysa marka waxaan ku daraynaa muxuu ahaayey yaanyo aan ku daraynaa yaanyada markaan saan ugu darno aan ku darsano sidii aan u karinaynay laakiin carabtan waa la yaabaysaa adoon waxba ku suuqaynin aad carabta la yaabaysaa maasha allah tabaarakallah waxaan hadda ku daraynaa wuxuu ahaaye biyo yar si ay noogu sii karkarto biyo yar aan ku daraynaa biyaheena si oo waxa dhan ay noogu karaan qudaar badan aan ku daraynaa annaga qudaarta badan oo aan ku darayno waxaa kamida mung beans-ka kamida iyo waxyaabo fara badan oo aan ka hadli doono waxyaabahaasitood waxaa waaye hadeertan kan dabka aan u dheeray intuun iisii karkaraayo inta usoo dhawow hadeertan waxaan ku daraynaa waxaa waaye muxuu ahaaye bataati macaan oo noo jarjaran mung beans-ki oo aniga aan xoogoo karkariyey waan kariyey markaasaan muxuu ahaaye markaan karinayo saan ayay u taalay waa kana aniga qaar leen had ka qaatay inta kale frinjeerkan gashanaya oo maalin kale ayaan karsanayaa marka waxaa kaloo inta ii yaalo digirteeni oo dhamcasada ahayd ayaa inta ii taalo iyadana ii jarjaran waxaa kaloo inta ii yaalo zucchini ama muxuu ahaay sida adiga u fahmaysidba courgette muxuu ahaaye iyo caanaha qumbaha oo caano qumba waaye waxaan inta isagana inta ii yaalo ay kabsar caleen oo ii jarjaran saliidi waaban ku shubayba iyo muxuu ahaay cusbo yar oo ku daray cusbada iska ilaali hadii dhiikar aa qabtidoo kale iyo biyaha inta aan ku daray marka kan way noo karkartay hadeertan markaan xoogo saas noogu bislaato waxaan ku shubaynaa hadda caraftiisa iyo qaaca ka dheer muxuu ahaay maasha allah tabaarakallah
وأنا سام موقع كرايا وحن كدرينا بطاطي معاك يعني كدر سنة بطاطي معاك أنا بيجي أنا فرك أنا شو محدد نتيجة المذوب ونقنا هدي أو أنت جربت دافتيد ما تبيها وحن وقدرت وحاول سي أو مذوب أوصل إيجام أنك أنا شو سي مذوب أوصل إيجام نقني مركب بطاطي معاك إنه واقع مركب سام وقدره دب عبارة داعو داير ما شاء الله تبارك الله قرح ونقنا على كنيت وأنا واحد ومعان بدن دقيق تاني تضمن بينس دقيق عجاك وحاول دقيق أنا اللي كريم واي هي أفضل حام كدرايا محوها هاي جيتي أو ناجر جرنا فرجتي أما زكيني دي أو ناجر جرنا سجانة وأنا قرح حيب اسمه نقلين روحيا وحاول ما ليسام وحيب صراحة ما شاء الله مركا menopause markaan ka hadalno menopause marka uu kugu dhaco waxaad dareemaysaa tilmaanka inuu kugu yaraanayo waxaad dareemaysaa wuxuu ahay madax xanuun badan waxaad dareemaysaa dulqaadka inuu kugu yaraanayo menopause markuu kugu dhaco marka waxaan kaloo ku dareynaa wuxuu ahay dhamcaso ama digirteeni oo digir cagaar ayaan ku dareynaa ayaan markay noogu karto quruxda ma aragtaa maasha allah tabaarakallah ayaan wuxuu cabaar noo karo waxaan ku jiri doonaa mangbins karis badan uma baahna marka saan kaniitood cabaar markuu noo karo oo inta aan ku guurino ayaan mangbins korka aga shubaynaa marka xoogoo yar markaan biyo yaraan ku darayaa si oo digirta ay u soo qaadato marka kan markuu bislaado waxyaabo badan aad ku dari kartaa hadda waxaan ku daraynaa cusbada iyo kaniitood laakiin cusba haddii dhiikar aa qabtid fadlan cusbada iska yaree cusbada kuuma fiicno dhiikar haddaa qabtid cusbaya ayuu suwaga iska yaree hadda kan intoo noo karkaraayo waxaan ka hadlayn menopause marka see ku ogaan kartaa menopause sidaan hore aga soo hadalnay waxaa dhididkaas aad iska dareemaysa habeenka hurdada dhowr jeer aad ka kacaysid maalintii oo dhan muxuu ahay xanaaqaada ama camal xumadaada ay badanayso ayay madax xanuun aad iska dareemayso murqahaagii oo daciif noqonayo marka menopause-ka annagaa iska daaweyn karno menopause waa annaga wax cudur kugu dhacaayo ma ahan badanaaba muxuu ahaay naagaha dhan oo ku dhacaa 90% menopause-ka naagaha oo ku dhacaa marka muhiim waaye annaga inaan la dagaalano maxaa jira wuxuu nagu ridayaa waxyaabo fara badan madax xanuun aad dareemaysaa waxaad dareemaysaa wadna xanuun wadnahaaga xoog u garaacmaayo adigoo daciif noqonayo siyaabo fara badan maxaa jira hurdo la'aan hadday habeenka ugu dhacdo dhowr jeer dhididka oo kaa kiciyo waxaad dareemay muxuu maalintii oo dhan inaad daalan tahay xanaaq fara badanna waa dareemaysaa dulqaadka oo kugu yaraanayo menopause-ka markuu kugu dhaco menopause-ka lama soo koobi karo waxyaabaha dadka ay kala kulmaan muxuu ahay luuqadaha ingiriiska waxay ku dhahaan hot flashes iyo waxyaabo fara badan hot flashes waa kulaylkan aad iska dareemayso oo muxuu ahay banaanka markaa aadidoo kale adoo meel dukaan iska adeeganayo oo kulaylka intuu kugu bilowdo dharka inaad iska siibtid ba aad rabtid dukaanka dhexdiisa markuu ahay meel alle meesha meelo badan oo kugu dhici karaa oo dhididkan oo kaa soo bixi karaa laakiinse annagaa la dagaalami karno laakiin ani waxaan idiin sheegaya sidaan ani ula dagaalamay keliya waaye ma ahan muxuu ahaaye siyaabo kale oo dad kale aan ka arkay ama sida aniga aan ula dagaalamay marka aniga haddaan iska dabaray waxaan niyeystay idinkana inaad igala qayb qaadataan saan oo kale aan muxuu ahaaye aan la wada dagaalano marka menopause-ka waa wax muhiim ah in oo lala dagaalamo naagaha dhan oo ku dhaca wax cudurana ma ahan waxaan ay waxa keeno menopause-ka waa waxaa caadadii markay kaa dhamaato caadadii markay naga dhamaato waa markaan da' gaarno da'daashaytood oo ah muxuu ahay markii 45 ilaa iyo 50 aad ku soo dhowdahay waa menopause-ka saasuu kuugu dhacayaa oo naagaha dhan oo ku dhaca 90% aye naagaha qaarkood si xun oo ugu dhaca qaarne sarbeebo ugu dhaca waxyar adoona muxuu ahaay saas aadan wax badan u dareemaynin marka biyo yaraan ku darayaa haddana wuxuu ahay si oo intaanan caanaha qumbaha weli aanan ku darin marka hadda waxaan kaloo ku shubayaa wuxuu ahaay linseedka aan horey aga soo hadalnay haddii dhaladaba aan furi karo waaye marka linseedaan ku darayaa linseedka waxaa waaye karis uma baahno waxyaabo oo menopause aad ugu fiican waaye linseedka sidaan horeyna idinkugu sheegay hadda aan ku darayaa wuxuu ahaay waa kana hal qaado ayay hal qaado kale aan ku darayaa linseedka aad u fiican yahay ama flaxseed sida adigan aad heli kartid wuxuu u eg yahay sisin ay markaa karisidna wuxuu u ekaanayaa muxuu ahaay
baamiyaha camal oo dhareer u noqonaya laakiin waxa waa karis uma baahna waxa lagu dari karaa yogurtkaad ku darsan kartaa ay saxaradu u fiican yahay waxyaabo badan oo u fiican yahay linseedka ama flax seedka marka wax oo heer sare ah oo macaan kaliyana waa yahay menopause aad ugu fiican yahay marka fadlan soo fiiriya markaad soo karsataan waxaan aasaan isugu karisaan ii soo sheegay kan see ku cuni kartiin marka waxaa ku cuni kartaa maraq waaye oo kale aan karinay suugo iyo aan isku dardarnay waxaa ku darsan kartaa rootiga ku cuni kartaa waxaa ku cuni kartaa soorta ama bariiskaad aad dhigan kartaa sidii adiga kula fiican sidii oo markaas aad dareentida samaysan kartaa ama baastadaada aad dhigan kartaa ama canjeero sida adiga oo damacdi marka maxaa noo haray hadda caanihi qumbaha ku dareynaa caanaha qumbaha ayaan ku dareynaa oo wuxuu ahaa ka dhigaayo waxyaabo rasiin ah oo ka dhigaayo caanaha qumbaha marka ama caano qumba haddaadan rabin looma u baahna inaad ku darsatid laakiin aniga caanaha qumbaha aadan u jeclahay caanaha qumbaha caafimaad badan ay ku jiro ayaa muxuu ahaaye tan mung beanska waxaa ku jira fitamiinyaal fara badan ay ku jiro saxarada way u fiican tahay oo saxarada kuu jilcinaysaa waxaanaytood oo mung beanska marka waa muhiim in oo mung beanska aad tijaabisaan oo muxuu ahaaye aad ku darsataan raashinkiina mung beanska siyaa keligeed aad dalacan kartaa adoon waxaan oo dhanba aanu ku darin oo aad ugu fiican tahay waxyaabo badan ay u fiican tahay jiraan hadda waxaan ku daraynaa kabsar caleenti aan ku darayaa maasha allah qurux kaliya bas ay mung beanska waxaa waaye fitamiinyaal fara badan oo waxaa jiro ay u fiican tahay oo aad ku darsan kartid oo aad cuni kartid oo muxuu ahaaye siyaabo badan waa u cuni kartaa burger aad ka samayn kartaa safarka dambe burger aan ka samayn doonaa ay waxaad ka samayn kartaa muxuu ahaaye suugada yar oo caadiga isaga darsan kartaa ay kaligiis intaa ka kalisid ayaa waxaa ku darsan kartaa ani hadda waxaan ku darayaa basil ma aqaan muxuu ahaaye waxaan kaloo ku daraynaa bahashan kale wax kaloo caraf kaliya waa korka aan ka saarayno marka ma ku soo tijaabiya markaad soo tijaabisaan ii soo sheega waxaad kala kulantaan waxaan intood oo mung beanska iyo aan isku kariyey iyo qudaarta wax heer sare waa oo aad iyo aad u macaan oo aniga aan u bogay nafaqo leh oo muxuu ahaaye saxarada u fiican menopause-ka u fiican oo muxuu ahaaye haddii dhiigkar aa qabtid waa u fiican yahay haddii muxuu menopause-ka u fiican yahay aan menopause-ka laba aniga waxa badanaaba aan ka hadlaayo laakiin kan nafaqo badan ayaad ka helaysaa aye waxaa kaloo ka helaysaa saxarada anaga dadkeena badanaaba saxarada ayaa aad iyo aad ayaga sheegtaan qof kasta qofkii ii soo jawaabo muxuu dhahaa wax saxarada aan ku jilciyo ii soo sheeg saxarada mung beanska iyo qudaarta naytood kale oo kaloo la cunaayo saxarada way jilcisaa qudaarta waxaa laga helaa fitamiinyaal fara badan oo jirka difaac u noqonayo marka soo tijaabiya markaad soo tijaabisaan ii soo sheega hadda waa kan waxaad ka aragtaan waaye diyaar uu noo yahay muxuu ahaaye karis kale uma baahna karis badan uma baahna sabataati macaanka wuu jarjaran yahay zukiiniga wuu noo jarjaran yahay markaad soo tijaabisaan bal ii soo sheega waxaad kala kulantaan ama like saara haddaad u bogtaan ama subscribe ku suubiya si aadan u gefinina channelada dambe soo socdo aan soo saari doono ee menopause-ka aan ka hadli doono iyo waxyaabaha kale ee menopause-ka u fiican oo aan ka hadli doono channelkeena oo dhan waxaa ka hadlayaa menopause-ka keliya markaad la kulantaan iiga soo jawaab waxaad kala kulantaan ayay muxuu ahaaye subscribe-na saara sifa aadan u gefinina channelada dambe soo socdo ee aan ka hadli doono waxyaabaha lagu daafaco menopause-ka mac salaamada iyo kulan kale mar kale wada kulan kale mac salaama